marxuumka eheladiisa ma la wargeliyay oo warbixin kooban aynu ku eegi doonno cidda ay tahay in la wargeliyo marka ugu horeysa ee uu qof geeriyoodo amaba ay geeriyooto mowduuca warbixinteena kooban ama qormada waxa uu ku bilaabmayaa sida tan. marka qof la dilo ama iskiis uu geeriyoodo dadka ugu horeeya ee ay tahay in ay ogaadaan geeridiisa waa qoyskiisa, waalidiintiisa, xaaskiisa iyo saygeeda, carruur haddii uu dhalay iyo wax walaalo ah haddii uu leeyahay. markaas kadib ayaa saxaafadda lagu faafin karaa geerida shakhsiga. hadda waxaad arkaysaa adigoo Facebook iska dhex mushaaxaya ayaa waxaa kaa soo horbaxaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxay haddu naftu daysay amaba geeriyooday heblaaye hebel ama hebel iyo waxaa hadda la soo sheegay geerida saaxiibkay qurac qansax galool. kaagaba sii daranay qaar ka mid ah dadka markii uu qarax dhaco ama bashil gaari ayay markiiba waxay kula ordayaan sawir meydka iyo dhaawaca, isla markiiba waxay sawiradaas ku soo bandhigayaan saxaafadda ama baraha bulshada ay ku xiriidho. bal qiyaas marxuumka sawirkaasi laga soo qaaday qoyskiisu inta magaalo, dal ama qaaradood ee ay ku kala baahsanaan karaan. marabi lahayd aabbaha oo ay naftu daysay oo aan adiga weli lagu soo sheegin geeridiisa in aad Facebook ku dhex aragto, ama walaalka ama xaaskaaga ama qof kale oo aad jeceshahay haba ka mid ahaada asxaabtaada. jawaabtu waa dhankaaga. waxaa habboon in la qadariyo ehelka marxuumka dhintay amaba geeriyooday. aniga waxaa ila habboon in aan isla saacadda uu qofku dhinto amaba geeriyoodo aan hore loogu soo qorin saxaafadda geeridiisa. haddii aynu qoyskiisa sidaasi oran, qofka tacsida ku diraya saxaafaddu ama baraha bulshadu ma ahan wariyo war la qararaya oo wakhtigu ka dhacayo. wax diidaya haba yaraatee ma jiraan in uu hal maalin sugo ama uu aaska kadib uu tacsida ku gudbiyo saxaafadda. ugu dambeyntii inta aadan tacsi ama sawir soo dhigin baraha saxaafadda ay bulshadu ku xiriidho, su'aasha ugu horeysa ee ay tahay in aad isweydiiso ayaa ah waa ciwaanka qormadan, waana marxuumka eheladiisa ma la wargeliyey. waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa qormada kooban. qormada waxaa qoray saxafiga weyn ee Yuusuf Garaad, wuxuuna qoray 10kii Diseembar 2014, waxaana idiin soo gudbinayay maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha Abriil 2020. 6 sano ayaa ka soo wareegatay waqtiga uu qormada ku daawacay bartiisa saxafiga weyn ee Yuusuf Garaad. maanta ayayna u egtahay in ay taagan tahay warbixintaasi. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad aragto channelka Dulmidi Tube, ha ka ilaabina subscribe to saaratood gambaleelka u furato si aad ugu mid noqoto saaxiibada sida joogtada ugu xiran channelka. hana ka ilaabin muuqaalka inaad like saarto, waayo like-tu waxay noo muujinaysaa in aad ka heshay muuqaalka. wixii aragtiya iyo fikir aad haysana iyo sida ay kula muuqato qormadan ama warbixinteena kooban commentiga nagula wadaag, siina share garay oo la wadaag asxaabtaada. intaan muuqaalka xiga aan dib hawada u kulmi doonno hadduu Allah awood loo ogolaado. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.